maxay yihiin cuntooyinka u fiican hooyada xilliga ay uurka leedahay nafaqa ay ka helayso ilmaheedana ay nafaqa ka helayaan cuntada ay hooyada qaadanayso waxaa muhiim inay yihiin kuwa ay energy iyo tabar ay ka helayso cuntada koowaad aan soo qaadanayo waxay tahay cuntooyinka ay borotiinku badan yihiin cuntooyinka uu borotiinku badan yahay waxaa kamid ah ukunta hilibka yogurtka iyo wixii la mid ah waxay ka caawinayaan inuu uurjiifkaaga si fiican u koro adigana miisaankaaga uusan nusqaamin qodobka labaad cuntooyinka ay calciumka ku badan tahay xilliga uurka hooyadu waxay isku arkaysaa ciridka oo dhiigayo soo waa muhiim inay isticmaasho cuntooyin ay calcium ku badan tahay waxaa kamid ah caanaha yogurtka iyo wixii la mid ah fruutka qaybihiisa kala duwan waxaa kamid ah qaraha cambaha liin macaanta hooyadu way isticmaali kartaa waliba waa inay aad u badsato fruutiska energy ay ka helaysaa tabar ayay siinayaan sidoo kale uurjiifkana korinshihiisa ay ka qayb qaataan isticmaal khudaarta cagaaran sida ansalaatada brokoliga iyo wixii la mid ah waxay ka caawinayaan in HB-gaaga uusan dhicin oo dhiig la'aan aysan kugu imaanin nafaqa ayay ku siinayaan oo fiican sidoo kale isticmaal cuntooyinka ay kamid yihiin ama fruitiska ay kamid yihiin avocadada balbeelmada liin macaanta malayga yogurtka waxaas dhan badso wax alaale iyo wixii aad heli kartid oo energy iyo nafaqa ka helaysid isticmaal waxa ugu muhiimsan oo maqaarkaaga qurxinayo energized ka dhigayo oo qof energy ka dhigayo waxa waaye biyo badan cab inta awoodid maalintii ha isku yareenin biyaha aad u badso wax walba aad cunayso uurjiifkaaga ayaa kula qaybsanayo ka fakar waxa cunayso inay noqdaan wax nafaqa leh sidoo kale meeshii aad maalinta cunto xoog leh hal waqti ka cuni lahayd cuntooyinka yaryareyso subaxi wax yar cun barqadi wax yar cun duhurkii wax yar cun casirkii wax yar cun sida u yaryareyso waqtiyada cuntada cunaysa badso laakiin tirada cuntada iska yaree haddii kale waxa kugu imaanaa inaad la labootid ama aama tagtid mahadsanid